بسم الله الرحمن الرحيم. حبناها قلياش الدولة سيجارة وزارة شقالها يدليرها وما أنت هالك مرتلو وياهي مسؤولين وزارة يدمان بهذا السبورتية هالك جوكتا قيبة هذا كل دول جارهان dhalinyaradii ka qayb gashay maanta tartanka gaaban ee marathonka ee 5 kilomitir waxaan oran karaa dhamaantiin bahambalyo intii ka qayb gashay waa wada guuleysatay guushiina waxa saldhig u ah inaad u hollateen oo isku daydeen inaad tartantaan orodkaas aad soo marteen waxay ka dhigan tahay dhamaantiin inaad wada guuleysateen waxaa wasaaradda iyo macallimiinta isboortiga u sahlan inay kala bartaan dhalinyaradooda dhinaca orodada ah siday u kala habboon yihiin iyo siday u kobcin lahaayeen kuwa weli u baahan tababar dheeraad runtii isboortigu muhiimadda uu leeyahay guud ahaan bini aadanka gaar ahaan xukuumaddan marar badan baa halka sheegnay bulsho ahaan bulshadeenu dhalinyaray u badan tahay dhalinyaradu markii magaalooyinka la soo galay dhalinyaradeenna miyiga joogtay waxay ahaayeen dad fardafuulka iyo orodada iyo bootinta iyo inta badan sports ah laakiin markii magaalooyinka la soo galay waxaa batay fadhigii sheekadii iyo dhaqamo aan qofka bini aadamka ka qayb qaadan karin noloshiisa dambe haddiiba ilaahay uu cimri siiyo marka runtii wasaaradda waa ku garab taagannahay xukuumad ahaan inaan ku dhiirigelino gacan weyna ka geysano sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa sidoo kale hay-adda UNFPA oo runtii hay-adaha xagga dhalinyarada wasaaradda aad uga kaalmaysa uga gacan qabatay iyadana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa iyo baxsan waxaan rajaynayaa inay sii socdaan guulaha sportska ee la gaarayo waxaad ogtihiin garoomadii qaybtood waxaa lagu hayaa gacanta kuwii kala diyaar garowgaadaa jira kulamo sports iyo kuwo kale oo dhalinyarada ah waa soo socda iyo dadka cuslaadada waa ku daraysan dhalinyarada cuslaad aniga jaamac dhiga dheere ee ciyaareen ciyaaraha dambe marka insha Allah waxa weeye sportsku annagoo dhan baa u baahan gabdho iyo wiilalba siday u kala habboon yihiin iyo meelaha ay ku kala habboon yihiinba in laga dhigo waa habboon tahay caafimaadkeena ku jira adduunku maanta waxaa la yidhaahdaa sportsiga waxaa loo dhiirigelinayaa in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka waad aragteen diyaaradaheena dadka ugu badan ee raaca waa dad jira soo maha dadka la qaado oo diyaaradaha buuxshay waa dad jira cudurrada ugu badan ee dadkeenna hadda aad u soo dilooday waad aragteen wadna xanuunka iyo keliya xanuunka iyo macaanka iyo waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah waa sports la-aan marka dan baa noogu jirta in aan yarayno dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba dhalinyarada ruuxadooda dee waxbaa u sii dheeroo qofka hadduusan fit ahayn naftarkiisa si u shaqaystaa adkaanaysaba marka dardaaran badan dhalinyarada waa haysataana u malaynayaa hadda baxsan waxay lahayd
هذا ناس عاطي صار ساعة وروح بدناتان فرين قبلها كسي دارو ملانا مركا waxaan laga rabaa inaan maaragtay sportska waqti badan gelisaan oo runtii waxaan uga xumahay dhalinyaro sports oo waqti badan gelinaya haddana balwad ku darsaday ninkaas waa nin isgubaya horta sports haddii balwad lagu daro automatically waa nin dar isku daro isgubay weyn marka waxaan iga waadinayaa haddaad sports gasheen dhinaca kaleeto ka taxadara waxyaabaha maaragtay sportska halista u waxaa ka mid waxyaabaha muqaadaraadka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan inta kusoo gaabiyo dhalinyaradii kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay iyo guud ahaan waan inii mahadcelinaynaa waana ku faraxsannahay inaan mar walba garab taagnaano waana na soo xasuusinaysaan inay dad badan oo cabdi bilow oo kale soo bixi doono sida hadda muuqata dhalinyaradii hadda ordaysa ma sahlanayn 5 kilomitir markay soo ordeen iyagoo weli in la sii daayo u baahnaan lahay 20 waa dhamaystir lahayn baan u maleynayaa aad bay maaragtay energy-gooda u fiicnaa aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi